Bismillaahi Raxmaani Raxiim wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Maantana waxaanu ka hadli doonaa qayb labaad oo ka mid ah guurka Soomaalida. Waxaa la yidhaahdaa dhabar garaac. Dhabar garaacu waa gabadha oo xoog lagu kaxeeyo. Gabadha xoog lagu kaxeeyana waa gabadh helitaankeedu uu adkaa. Waxaa suuragal ah in gabadha dhowr qolo ay soo wada doontay. Waxaa suuragal ah gabadha oo ninka diida. Waxaa suuragal ah gabadha oo aad u karti badan, damac fara badan oo gabadha intuu ninka ka galo u suura gelin waayo inuu gabadha hantiyo ayay ku kaliftaa in gabadhii uu xoog soo kaxeeyo. Nin hal abuur ahaa ayaa wuxuu ku faanay mar in hooyadii la soo dhabar garaacay, maadaama hooyadii si adag lagu keenay soo qabashadeedana fikir iyo tacab badani galay. Wuxuu sheegayaa gaadiidkii la sii kaxaystay iyo qalabkii saaraa. Dabeetana waxa uu yidhi sangahalow biciid leh iyo darmaan heense laga buuxshay habartay fardaa lagula tegay hiirta waa bariye gobonimo horaan ugu dhasho waa u hitinaya. Waxaa jira mid la tag inanka iyo inanta heshiiya, isagoo inanku aanu haynin kolkaa hanti buuran oo uu ugu soo geed fadhiisto, markaasna way israacaan. Waxaa kale oo ka mid ah hababka guurka heerinka. Soomaalidu waxay tiraahdaa heerin hay ma eego. Kolkay weynaadaan ee ay dhaafaan xilligii la guursan lahaa ayaa intay is urursadaan ayay iyagoo koox ah isu raacaan oo hadba beeshii ay dul yimaadaan ayay ag fadhiistaan. Qaaliban waa la jirrabaa oo waa la kala soocaa hablaha. Ta loo arko kolkaa inay afar noqon karto ayaa lagala soo hadhaa. Midna waxaa la yidhaahdaa ugal. Ugalku waa inay gabadhu guri sahansato nin jooga, amba doob ha ahaado ama reer ha lahaado. Gurigay gelaysaa, waxaan u socdaa hebel bay leedahay. Kolkuu hebelku yimaadana waxaan baa la odhanayaa waa inan ilmadoowa, nafsi iyo cirib dambe xun ayaa laga waaniyaa, isagoon ogolayna waa lagu qasbaa. Waxaa ka mid ah kala yidhaahdaa ku qaadashada. Ku qaadashadu waa ninku marka uu gabadha nabar wejigeeda u geysto, tusaale ahaan inuu ili ka rido amba uu wejigeeda qoon u geysto, foolxumo ku keeni karta. Soomaaliduna waxay ku mahmahdaa quruxdeeda wuxuu dhimi qadaadka ayuu u ritaa. Ka u dambeeya waa godob reeb oo ah ninka la dilo walaalkii in la siiyo ninka wax dilay walaashii, si halkii dhiiggu uu ugu daatay xab uu ugu bururo oo ninkii la dilay ninkan kale walaashii ay ugu dhashay inamo uu ku ilaabo. Ubadkani waxay noqonayaan wax nabadgelyo abuura, sababtoo ah ubadka aad dhashay abtiyadood ama abtigii nabar kula haliili maysid. Intaasay ku dhan yihiin 10 nooc ee guurka Soomaalida. Inta aynu sarkeenana nabadgelyo.